السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. xildhibaanada sharafta leh maanta waxaa hortayda yaalo oo aan qabtay mooshin ay soo gudbiyeen xildhibaanada Soomaaliyeed kana soo gudbiyeen dastuurka dalka. waxaan doonaynaa inaan qoraalkii koobaad ee mooshinkaas maanta qaybiyo isla markaana maanta laga doodo qaybtii koobaad isla maanta loo kala kici maayo waa la aqrinayaa isla maantana in loo codeeyo ayaan idin farahayaa. نعم بالفضلكم نعم هاتم وحان استاجينينا مدن حلدبان لبا اندود ميكروفونك waa ku furan yahay beeqaan waqtiga daqiiqad baad haysataa ma hadari bismillaahir rahmaanir rahiim mudanayaasha sharafta leh gudoomiye aad baad u mahadsantiin maadaama aynu nahay wakiiladii shacbiga Soomaaliyeed markii aynu shacbiga Soomaaliyeed xogtooda iyo rabitaankooda helnay waxaynu ogaanay shacbiga Soomaaliyeed inay si dadban u codeeyeen dastuurka jamhuuriyadda kaas oo shacbiga Soomaaliyeed ay u tahay lama taabtaan heshiiskii bulsho Soomaaliyeed ee dastuurkii 60kii uu yahay dastuurka saxda ah xaq ah ay leeyihiin dadka sida daraadeed waxaynu mooshinkan u soo gudbinay oo aynu ka keenay dastuurkan qabyo qoraalka ah in dib loogu noqdo shacbiga Soomaaliyeed rabitaankooda lagu shaqeeyo dibna loo soco sida daraadeed sida ay midnimada Soomaaliyeed u tahay lama taabtaan ayuu shacbiga Soomaaliyeedna u yahay dastuurkii bulsho ay ku heshiiyeen 60kii inuu yahay lama taabtaan sida daraadeed waxaan codsanayaa soo jeedinayaa in la laalo dastuurka qabyo qoraalka ee konfliktiga badan xambaarsan salaam alaykum mudane gudoomiye waad mahadsantahay iyo mudanayaal dhammaantiinba annaga wadaan nahay xildhibaanada da'da yar ee ku jira baarlamaanka waxay ila tahay dastuurkii hore ee kii waa gaboobay waa wax laga tagay fikradeyda marka sidaas darteed waxaan codsanaynaa oo aan soo jeedinayaa in dastuurka hadda oo casriga ah ee la jaan qaadaya adduunka aan wax ku darsano asagana aan ku dhaqanno mudane gudoomiye anigoo ka soo jeeda xildhibaan ka soo jeeda Somaliland ama gobolada waqooyi aad iyo aad bay fiican tahay dastuurkana ka hadasheen in la meel mariyo laakiin waxaad ogtihiin Somaliland inay maqan tahay waxaad ogtihiin shirkii dib u heshiisiinta ee goboshiina la isugu iman wararkaas oo dhan waa ogtihiin sidaa darteed waxaan codsanayaa oo aan ka codsanayaa gudoomiyaha iyo xildhibaanada sharafta leh inta ay ka imanayso Somaliland dastuurka in dib loo dhigo taasaan codsanayaa gudoomiye haatan waxaan microphone-ka u furayaa xildhibaan dhagadheere mahadsanid mudane gudoomiye afariindhood iyo mudanayaal iyo marwooyin waxaan maqlayaa saaxiibkay oo dhahayo dastuurkii 60kii lama taabtaan waaye maxaa faa'iido ah oo uu leeyahay dastuurkii 60kii inay ku dhaqanto ummadda Soomaaliyeed taas ayaan codsanayaa in nagala jaahil bixiyo aniga iyo inta igu fikirka ah haatan waxaan u yeerayaa xildhibaan raka dhigan 5 daqiiqo ayaad haysataa mahadsanid waa mahadsantahay gudoomiye iyo dhammaan xubnaha baarlamaanka ee halkaan fadhiya haddii loo fiiriyo dastuurka 60kii qornaa waa mid waxtarkiisa iyo tayadiisa la arkay oo dawladnimaha naan aan ku soo dhaqanay midkaanse muxuma laftigiisu laakiinse qabyo qoraal aan dhamaanayn buu noqday marka anigu waxaan codsan lahaa oo soo jeedin lahaa in dib loogu laabto dastuurkeeni horeeto kana midkaan aynu isku xornaba waa hagaag haatan waxaan istaajinayaa xildhibaan halsan le ku soo dhawow mahadsanid mudane waan dhawahay in turxaan laga saariyo tafaftir baan ku jirnaa iyo dastuurkii qabyo weeye tuhum baan ku mashquulay taakana waa rogi weyne dastuurkii horaan rabnaa oo waxtarkiisa naqaanay shacbigu taagan yihiin goluhuna waa tixgeliyeen taasaana mooshinka keentay miro gunti ku jira miro geed saaran looma daadiyo Soomaaliyey waa mahadsantiin wahagaag haatan waxaa mayga loo furayaa la istaajinaya xildhibaan gardhuub waxaad haysataa 5 daqiiqo fadlan waqtiga beeqaam aad baad u mahadsan waa mahadsantahay gudoomiye waxaan salaamayaa dhammaan xubnaha baarlamaanka sharafta leh ee halkaan golahan isugu yimi war dastuurkii hore 60kii wuxuu ahaa hal magaalo dastuurkan qabyo qoraalka ahina wuxuuna ka saacidayaa hadda waxaynu ognahay in magaalooyinkii bateen in dadkii batay in calaamadii bateen marka waxaan ku talin lahaa in aynu dastuurkeenan sidaa wax walba u bateen buu inuu ku badinayaa isaga inuu dhammaystiran
yeelanno وهجاج هاتنا ميكروفون كو حوفرن يا حلدي بان هادلايه ميكروفون كو كوفرن يا 5 دقيقة هيستا مهاتني waa mahadsantihiin mudane guddoomiye iyo mudanayaal dhammaantiinba waa idin salaantaas kadibna waxaan rabaa inaan soo jeediyo ujeedkan yaanba fahmi la ah meelaan u jeednay meelaan ka jeednaan garala ahay shacabkana in la wareeriya lama rabee baarlamaanow amba sharciga hore aan ku dhaqanno amba sharcigan qabyo qoraalka aan ku dhaqanno amba inta waxa dhanba iska tuurno sharci cusub aan samaysano hadda iyo kow shacbigu waa wareeray dhinacuun ha loo dhigo waa la hoogay sidoo xagga loo lahaay yaan shacbiga la jaha wareerinin anaguna taasaan qabaa waana mahadsantahay mudane guddoomiye iyo mudanayaal waa hagaag haatana waxa microphone loo furahayaa xildhibaan samawada 5 daqiiqo ku soco waad mahadsantahay mudane guddoomiye dhinaca dastuurka hadii aan u beero anigu waxaan qabaa inaan dastuurka 60ka aan ku dhaqano sababtoo ah asiga maamulkiisa naqaana dhaqankiisa naqaana dhinaca maxkamadaha markii la yiraahdo lagu dhaqma gobolka banaadir lacal hadaad rabto inaad ka soo goysato waraaqo oo dhul bixina asaa lagu dhaqma wax walba oo dhaqankiisa waxaan u naqaanaa dastuurka 60ka marka waxaan rabaa in lagu dhaqo dastuurka 60ka sababtoo ah kan ma naqaanaba anaga waa hagaag haatana xildhibaan qamar weyn ayaan istaajinaa qamar weyn 5 daqiiqo ayaad haysataa waad mahadsantahay waa mahadsantahay mudane guddoomiye iyo dhammaan xiblaha baarlamaanka ee ku sugan goobtan aniga oo ah xildhibaan kamid ah xildhibaanada meesha jooga waxaan u mahadcelinayaa marka koobaad guddoomiyaha oo soo bandhigay dastuurkii hore ee 60ka marka labaadna waan ku taageerayaa in la qaato dastuurkii 60ka marka saddexaadna waxaan codsanayaa oo si gaar ah u codsanayaa in bulshada Soomaaliyeed u badan daayarta sideedoo kale ah in ay ku baraarugaan oo ay akhristaan dastuurkii hore ee 60ka looguna geeyo goobaha waxbarashada iyo meel walba ay ku sugan yihiin si ay u qaataan wahagaag haatan waxaan istaajinayaa xildhibaan urbunsho 5 daqiiqo ayaad haysataa adigoo aad iyo aad u mahadsan waqtiga noo beeqaan haye bismillaah mudane guddoomiye iyo xildhibaanada sharafta leh kulli waa salaamantii salaam bacdigeed waxaan soo jeediyaa horta guddoomiyaha baarlamaanka waa mahadsan yahay laakiin aniga waxaan qabaa su'aalan qabaa guddoomiye waxaadna tiri isla maanta hala akhriyo isla maantana hala ansixiyo aniga ilama fiicna saas waxaan rabaa inaad tiraa hala geliyo akhrintii koobaad akhrintii labaad akhrintii saddexaad kadibna ha loo gudbiyo aqalka sare in lagu dhaqmo dastuurkii 60kana waan u codaynayaa waa mahadsantiin waa hagaag haatan waxaan istaajinayaa xildhibaan afmaal su'aasaguna maartay fikirkiisa uga jeediyo mudane guddoomiye adiga xildhibaanadu waa mahadsantiin waan soo dhaweynaya waxaan rabaa inaan anigu ku daro ninkii xal u dooni kara wanaag ugu deeqi kara dabiibiya kii dhaqtara maanta laga doonayaa ninkii sumc daari kara dadkeenu u baahan yahay mudanayaal idinkoo aad iyo aad u mahadsan waa dhagaysanayay doodiinii sida muuqatana waxaa dadka Soomaaliyeed idinkuba intiina badan aad ku kalsoon tihiin dastuurkii 60ka haddii aanu wax ka xusno qodobada aan laga maarmi karin ee dastuurkii 60ka iyadoo wax laga maarmi karaba aanay ku jirin waa furahayaa dastuurkii 60ka in lagu daro qodobo yar oo kooban waa ogolnahay hala eego ku daritaan waa la ogol yahay laakiin sida aragtidayda aniga ah dastuurkii 60kii lama taabtaan buu yahay markaanu eegno waxaad arkaysaan damaaciga loo geystay badaheeni iyo dalkeeni damaaciga waalida ee ku socdo waad arkaysaan taasina waxay keentay inaanu dastuurkeeni baahinay dastuurkeeni 60kii wuxuu dhigahayaa oo muhiimood wada garan kartaan qodobka 39 oo ah bad iyo biri bayxada iyo cirka dhulkeenu inta uu leeyahay sida darteed dastuurkaas hadii aanu codayno xitaa maxkamadda adduunka dacwadda inaga taalo way ka soo noqonaysaa waayo dhulkeenu waa laba taabtaan badeenu waa laba taabtaan birigeenu waa laba taabtaan dastuurkii 60ka ayaa isku hayn karo badbaadin karo dadka iyo dalka Soomaaliyeed codkayga waxaan ku codaynayaa in dastuurkii 60kii uu noqdo midka aanu ku dhaqno dadkan iyo dalkan guulaysta waa noo xiran yahay kalfadhiga Soomaaliya dastuurkii 60kay taaqaan tayalaho wax noo teera dastuurkii 60kay tayalaho wax noo taara dastuurkii 60kay tayalaho wax noo taara haatan waa qaybteennii maxaa sixid u baahan waxaa sixid u baahan oo in la saxa u baahan maamul goboleedyada subaxii dhahaaya dawladda waa taageersannahay waa la shaqaynaynaa dawladayni dhaxawaaye waa ka tirsannaha galabtiina dhahaaya kalsoonidii waa kala laabanay waxaa kaloo sixid u baahan macaaradka adduunka iyo dawladaha ilbaxaya hore u maray waxbay toosiyaan laakiin inaga macaaradkeennu waxbuu dumiyaa taasaa sixid u baahan السلام عليكم كبري
وعليكم السلام ويلو googa cigalle adoon tirtira soo marin baa darawalnimo taw la soo tiri oo maxaad ka wadaa war wuxuu ka wadaa dhaqanka iyo siyaasadda isku dhex milmay in la kala saaro oo xaggay isaga jiraan oo xaggay isaga walaaqan yihiin oo xaggay isaga milmeen waa run oo waxay isaga walaaqan yihiin boqolka boqor iyo boqolka garaad iyo boqolka suldaan iyo boqolka wabar iyo boqolka caaqil iyo boqolka islow iyo boqolka islaan iyo boqolka ergo iyo boqolka ugaas iyo boqolkaas iyo boqolaal ka badan keebaa originaala keebaasa koobi ah war heedha waa runtaayoo waxaaba la kala garan waayaba kan siyaasigu samaysteed kii saxda ahaa war yaa dhoorayaal baatiin dhoorayaal dadkaana 24 saac dhuu nagu madoobaadeen si aan mustaqbalkooda uga shaqaynaynay oo waxaas ku hadlay adduunka waxa ugu daran qof aad mustaqbalkiisa ka shaqaynayso oo asta kabtaada iyo karintaada goynay war beel war haddaad taabateen halkay sartu ka quruntay ee aanu ka barkin dhacnay qof walba geysay shaqo aanu ehel u ahayn waana tana dhaxal siisay in qof loo diro shaqo aanu ehelba u ahayn sixid weyn u baahan waxaan isku maanku nahay maskaxda waa lagu dhisaa madaxa waa lagu hagaa mijaha waa lagu socdaa midigta waa lagu qabtaa hadii kala waxaan lahaa miskaha waa lagu kacaa margigu wuu caawiyaa indhuhu muuqay arkaan dhagaha waa lagu maqlaa hadday kala maqan yihiin maqsuud lama gaari karo wixiina marooriyo muraad gaariyo dan lana ma yeelaynaa ku filan